wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koore ayaa ka qayb galay munaasabad qada sharaf ah oo lahaayeen beelo dib loo heshiisiinayay ee magaalada Laascaanood waxaana hadii sharafkaasi soo qaban qaabiyay mid kamid ah beelaha nabadayntooda loo fadhiyay warkan waxa Laascaanood inooga soo diray Cabdilfataax Reygal beesha jaamacsiyada ayaa qadar sharaf u sameysay beesha Maxamed Siyaad oo muddooyinkii u dambeeyay gobol nabadeed uga furnaayeen deegaanka Arcadeeye ka tirsan gobolka Sool waxaana munaasabadaasi qadar sharafta ah ka soo qayb galay isimo cuqaal waxgarad iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koore waxaana wareyntiiba halkaasi si wada jir uga hadlay odayaasha iyo waxgaradka labada beelood ee Jaamacsiyaad iyo Maxamed Siyaad maanta halkan oo ay dhigtay gobasheeda beesha Jaamacsiyaad waxaan lamana taariikhdana hore looma sheegin umana ay dhicin inta leeg oo guurti iyo waxgarada oo iyagu iscasumaya ama ismarti qaadaya oo xafladan oo kale isugu yimi oo maxamuud garaado waa ilaahay mahadi ilaahayna waxaan u leenahay ilaahu noo siyaadi shirkiinina markuu inoo dhammaado waa gabagabo haddii lahaydmo tani waa sahankii nabadda iyo hordhaca dhammaan waxaynu mari doonaa degmooyinka iyo deegaanada aynu leenahay maanta waxaa sharaf weyn u ah inaad casuumaadii aanu dhignay haddaad beesha haddaannahay beesha Jaamacsiyaad aad ka soo qayb gashaan oo beesha Maxamed Siyaad ay si nabadgelya oo wanaagsan iyo shucuur wanaagsan kaga soo qayb gasho waana ka mahad celinaynaa maqaabiladan ay ka soo qayb galeen walaalahay intaa waxaan ku darayaa waxaan u malaynayaa xafladii shirku welidii ma xidhmin casuumadani waa hordhac beesha Jaamacsiyaad ay u samaysay beesha ugaadhiyaan siyaad ay walaalaha yihiin waxay tilmaan u tahay oo ujeedadeedu tahay isdhexgalka kabtanka wadaqadaynta waxaan u malaynayaa qada sharaftani waxay tilmaan u tahay oo ujeeddo u tahay in dadkii walaalaha ahaa ee maxamuud garaad sidan isu soo dhex galaan salaanka bacdi maanta waa maalin farxad leh waa maalin taariikh ah waa maalin aad iyo aad ugu weyn dadka ugu weyn beesha halkan lagu soo casuubay iyo beesha wax casuutayba waa maalin aad iyo aad ugu weyn aad ka mahadnaqaynaa odayaashii halkan ka hadlay iyo casuumadii la dhigay aad iyo aad baan markii hore u soo dhaweynaa uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol baan ka mahad celinaynaa beesha Jaamacsiyaad aad baan uga mahad celinaynaa waxaan saa ugu soo koobay waxaa badnaanaysa darajada iyo sheegsheega iyo waqti damba waxaan leenahay dhammaan ugu horeyn marka ugu horeysa ilaahay baa mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh goobtan idmay inuu maanta isugu keeno nabadgelyo iyo kalgacayl iyo wanaag iyo isjacayl lagu kulmisiiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan u mahad celinayaa beelweynta Jaamacsiyaad oday xasan waxaanu leenahay Allah ku barakeeyo rag badan baad maanta ka horeysay goobta waxaynu kaga nimiyo waxaad ka qaadateen waynu ognahay quruxdeeda iyo wanaageeda iyo meeshii aad wax soo dhigtay iyo sidii quruxda badnayd oo aan halkan lagu sharixi karayn shirkan aad ku magacaawdeen qalbi furka iyo calool xaarka Siyaad Maxamuud Allah inoo hirgeliyay baa mahad leh gudidii qabanqaabada ama gudidii dhaqaalaha ee shirweynaha Arcadeeye oo aan isleeyahay waqti badan iyo dadaal badan aan gelinay meesha wanaagsan ee ay marayso haddii ay tahay xubnaha dawladda ka fadhiya haddii ay tahay isimadeenna iyo haddii ay tahay odayaasha sharafta badan ee labada beelood oo shirkan hanaaninayay oo aanu isleenahay si qurux badan oo qiimo leh ayay u soo hanaaniyeen cadawgiin ha jabo cimrigiina ha raago ilaahay mutaafaqa wanaagsan ha idin siiyo si kasta oo halkan isa soo taagay intuu yidhi baan idhi halkuu dhigayna waan dhigay waxaan isleeyahay wixii hadalii goobteeda iyo meesheeda ayay iman doonaan waxaan u kacay inaan u mahadnaqo oo keliya beesha iftitaaxaadkii casuumaadda samaysay
jaamac siyaad ee uu hogaaminayo xasan maxamed faarax xasan geerish xasan faarax jaamac xasan geerish oo aanu runtii saaxiibbo dhowna ahay waqtiyada ka midana aanu dirayska militariga wada sidan jiray allahu guul baan rajaynaynaa shirkuna wuxuu ku dhow yahay gabagabo